الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa Somali Banaatir TV barnaamijkeena maanta la yaabka dunida waxaan ku soo qaadan doonaa meyd dadka ka qosliyay xilli lagu gudo jiray munaasabadda aaskiisa dadkii janaasadiisa waday ayaa qosol la daatay gobol ka mid ah gobolada Finland fariin ka soo gaartay meydka ay dusha ku sidaan oo lama filaan ku noqotay dadku waxay isugu soo baxeen si ay u sagootiyaan oo waxaa socotay munaasabadda aaskiisa Thomas oo ahaa askari ka tirsan ciidanka Finland laakiin waxaa lama filaan ku noqotay dadkii inay maqlaan codkiisa isagoo qabriga ka soo dhex hadlaya dadkii aaska isugu soo baxay ayay la yaab ku noqotay inay maqlaan codka ninkaani dhintay isagoo leh soo dhawaada iyo ogolaada inaan ka soo baxo meesha iga saara aad bay meesha u madowdahay oo waxa aan maqlaa macuudka wadaadka waa anigii waa Thomas sanduuqa iga saara Thomas waxa uu hadalkiisii ku daray maya xaalku sidaa moodeen maaha mid ayaan ahay mar labaad soo dhawaada waxaan jeclaystay in aan idin soo gootiyo oo qura Thomas ayaa dhintay kadib markii uu muddo la dhibaatoonayay cudur laakiin waxa uu jeclaystay inuu si gaar ah u sagootiyo qoyskiisa iyo dadkii uu jeclaa wiil uu dhalay ayaa sheegay in aabii uu fariintan duubay inta aanu dhiman ka hor waxaana laga shiday microphone intii lagu guda jiray dugista isagoo ay dadka xusuusinaya inuu ahaa qof kaftan badan oo dadka ka qosliya daawadayaal dhegeystayaal barnaamijkeena intaa ayaan ku soo afmeeraynaa haddii aad ka heshay barnaamijkeena fadlan rukumo oo dheh subscribe like share na dheh haddii barnaamijku idin xiiso geliyay